badan waxaa ku jira qaar doorasho kasta ku guulaysta iyo qaar xilalka ku qabsaday afgembi iyo dhaxaltooyo waxaana qaarkood ay kor u dhaafayaan 40 sano xilhayntooda halka kan ugu yar xilhayntiisu uu gaarsiisan yahay 20 sano aan soo qabto madaxweynaha kaalinta koowaad ku jira Tedros Obiang Nguema madaxweynaha dalka Equatorial Guinea waxa uu xukunka qabtay 1979kii Tedros Obiang sheekadiisa waa mid xiiso badan waxa uu ka soo baxay akademiyadii militariga oo ku taalay dalka Spain isagoo madax ka noqday jasiiradda ilaa adeerkiisa Michel Nguma oo madaxweyne dalkaasi ka ahaa uu dilo aabihiis iyo inta badan qaraabadooda markaas kadib Tedros Obiang ayaa dagaal la galay madaxweynihii adeerkiisa ahaa waana uu ka adkaaday madaxweynihii ka horeeyay waxa uu carruurtiisa u diray waqooyiga Korea waxaana isaga lagu qabtay baadiyaha dalkaasi ugu dambeyntiina waa la toogtay Tedros Obiang wixii xilligaasi ka dambeeyay 1979kii waxa uu madaxweyne ka ahaa dalka Equatorial Guinea waa dalka ugu hodansan qaaradda Afrika balse shacabkiisu ay weli fakhri yihiin wiilkiisa iyo dadka ku dhow waxay ganacsi ku leeyihiin qaaradda Yurub iyo Afrikaba kaalinta labaad waxaa ku jira Paul Biya madaxweynaha Cameroon oo xilkan qabtay 1982 intuusan madaxweynaha ka noqon Cameroon 82 Biya waxa uu ra'iisul wasaare u ahaa madaxweynihii isaga ka horeeyay Ahmadou Ahidjo Paul Biya marar badan ayaa waxaa la soo gudboonaatay cadaadis badan balse waxa uu uga badbaaday xiriirka uu la leeyahay dalka Faransiiska oo horey u soo gumaysan jiray dalka Cameroon madaxweynaha saddexaad ee ugu xilhaynta dheer Afrika ayaa ah Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda oo xukunkaasi soo hayay ilaa 1986 waa madaxweynihii ugu muddada dheera ee dalkaas dad badan oo reer Uganda ayaa kula taliyay inuu xukunka ka dago ama tartan madaxtinimo uu iskaga haro waxa uu si jees ugu jawaabay haddii aan dhinto xitaa qabriga ayaan ka soo tartamaya madaxweynaha ama hogaamiyaha Afrika ee kaalinta afraad ku jira ayaa ah boqorka Mswatigi saddexaad boqorka dalka Switzerland waxa uu dalka qabsaday Abriil 1986 markaas uu gaaray da'da 18 jir 4 sano kadib markii uu aabihiis geeriyooday waa hogaamiyaha kaliya ee qaaradda Afrika oo isagoo 18 jir ah xilka la wareegay dalkaasi waxa uu ku haystaa awood aan xad lahayn inkastoo uu dalka uu leeyahay baarlamaan ra'iisul wasaare iyo xukuumad haddana isaga ayaa ka awood badan madaxda qaaradda Afrika waxa uu dheer yahay boqornimada marka laga soo tago waxa uu dhawaan guursaday gabar 19 jir ah oo noqonaysa xaaskiisii 14aad kaalinta shanaad waxaa ku jira Idris Deby madaxweynaha Chad 1990kii ayuu xukunka qabsaday waxa ay isku dhaceen isaga iyo madaxweynihii xilligaasi Hussein Habre Deby waxaa loo musaafuriyay dalka Liibiya taageero uu ka helay dalalka Liibiya iyo Suudaan ayuu weerar ku soo qaaday Habre sanad kadib waxa uu la wareegay caasimadda Djamena sidaasina ayuu ilaa haatan xilka ku hayaa madaxweynaha kaalinta lixaad ku jira ayaa Asias Afwerki madaxweynaha Eritrea waxa uu xilkan qabtay 1993 dalka Eritrea tan iyo markii uu xorriyadda qaatay sanadii 1993 kana qaatay dalka Ethiopia ma arkin hogaamiye aan ahayn Asias Afwerki waa nin aan naxin xisbigiisa ma aha cid kale siyaasad kama shaqayn karto arrimaha dimuqraadiyadda iyo hanti-goosadka la xiriira maba lagu soo qaadi karo eedaynta reer galbeedka iyo deriska dheg jalaq uma siiyo waa kelitalis caabas maraya kaalinta toddobaad waxaa ku jira Denis Sassou Nguesso madaxweynaha Republic of Congo madaxweyne Nguesso waxa uu dalka qabsaday 1997 waa markii labaad uu dalkaasi maamulo horey waxa uu madaxweyne u noqday 1979kii ilaa 1992 isagoo mar kale dib madaxweyne u noqday 1997 markan dambe dalka Republic of Congo waxa uu ku jiray dagaal sokeeye waxa uu xilka ka xoogay madaxweynihii Pascal Lissouba ilaa iyo hadda isaga ayaa xukunka haya madaxweynaha kaalinta sideedaad ku jira ayaa ah Letshega saddexaad oo magaciisu dhabta yahay David Muhata waa boqorka dalka Lesotho oo ku dhex yaal dalka Koonfur Afrika
waxa uu dalkaasi ra'iisul wasaare ka ahaa 1990 ilaa 1995 oo uu aabihiis ahaa boqorka dalkaas 1995 aabihiis ayaa ku dhintay shil gaari waxaana xukunkii boqornimada la wareegay liidsigii saddexaad ilaa hadda isaga ayaa ka talinaya waddanka ku dhex yaal kaalinta sagaalaad madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu dalkaasi madaxweyne ka noqday sanadkii 1999 waxa uu ilaa waqtigaasi hayay talada isaga oo doorasho kasta oo ka dhacda dalkaasi ku soo baxayay codad aan xad lahayn waxaana lagu eedeeyaa in uu ku shubto Ismaaciil Cumar Geelle waxa ku soo baxay mucaarad xooggan sanadihii u dambeeyay kuwaasoo doonaya inuusan dib dambe isku soo sharxin kaalinta tobnaad waxaa ku jira Paul Kagame hogaamiyaha Rwanda sanadii 2000 ayuu dalkaasi hoggaanka u qabtay 1994 Paul Kagame iyo kooxdiisii RPF waxa ay ka adkaadeen ciidamada Rwanda kadib xusuuqii Rwanda ka dhacay 1994 ilaa 2000 madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa ka ahaa ra'iisul wasaare balse sanadii 2000 ayaa loo doortay Paul Kagame madaxweynaha dalkaasi waxaana dib loo doortaa doorasho kasta isagoo ku guuleystay codad dhan 99.9 haddaynu ka nimaano tobankaasi madaxweyne sidoo kale waxaa jira madax kale oo ilaa hadda aan la jebin rikoorka u degsan xagga xukun haynta qaaradda Afrika waxaana ka mid ah boqorkii Ethiopia Haile Selassie kaasoo la tuuray 1974 waxa uu boqor ahaa 44 sano Muammar al-Gaddafi madaxweynihii Liibiya waxaa la dilay 2011 waxa uu dalkaasi maamulayay 42 sano Omar Bongo waxa uu ahaa madaxweynihii Gabon waxa uu dalkaasi xukumayay ilaa uu ka dhinto Oktoobar 2009 41 sano ayuu ka tilinayay dalkaasi waxa hadda taladii la wareegay wiilkiisii Ali Bongo oo hadda haya 10 sano intaas ayaana kusoo gabagabaynaa barnaamijkii maantay aan ugu talagalnay asxaabteena ku xiran janalka taariikh fadlan haddii aad ku cusubtahay janalkan subscribe garee sidoo kale haddii aad asxaabtaada la wadaagi kartid la wadaag waana mahadsan tahay